dhibaatooyinka caagadaha ay ku hayaan magaalada Muqdisho haday cudurro tahay haday nabaad guur tahay inaysan haysan bulshadu wacyigelin siiba dhalinyarada muuqaalkan waxaan ku soo bandhigi doonaa dhalinyaro kala duwan oo isku xilqaamay ilaalinta iyo horumarinta deegaankooda. Tani waa Faatuma Aways oo ah farshaxaniiste hibadeeda farshaxnimo ku soo gudbisa wacyigelin ku saabsan deegaanka iyo dhowristiisa. Waxay nooga waramaysaa doorka farshaxaniistayaashu ka qaadan karaan u dhaqdhaqaaqida cimilada. wax oo uusan hadalka si fudud uusan ugu gudbi karin ayuu si fudud sawirka ugu gudbin karaa. waayo sawirka qof walba fahmi karo. farshaxanka waa aalad loo isticmaalo in dadka lagu wacyigeliyo. Mustafa waxa uu inooga waramayaa qaabka uu ku noqday qof xiiseeya u dhaqdhaqaaqida cimilada. kan waxa uu dhaliyay barnaamijkan dhaqdhaqaaqida cimilada in ka qayb qaatay barnaamij lagu magac daray Hagta Plastic oo ay soo gaasintay macadka AIS ee jaamacadda Simad kaas oo si koox u xalinayay dhibaatooyinka caagadaha ay ku hayaan magaalada Muqdisho. kadib waxay ku dhashay inaan noqdo social activist dhaqdhaqaaqa cimilada iyo arrimaha deegaanka. Saabiriin waxay inooga waramaysaa caqabadaha ugu waaweyn ee dhalinyarada ka hortaagan u dhaqdhaqaaqida cimilada ee hadda ka socda Soomaaliya. ani ahaan waxa ila tahay caqabadaha hortaagan in loo dhaqdhaqaaqo arrimaha deegaanka ee wadankeena saddex baa ku qiyaasi karaa. taas waa midda koowaad waxay tahay inaysan haysan bulshadu wacyigelin siiba dhalinyarada. tan labaad oo ah inaysan haysan aqoonti baaxadda leh ay ku waajihi lahaayeen isbedeladan ku yimaada cimilada maadaama ay dhibaatooyin badan cimilada ka timaado sida daadad inay bilaabaan inay daadad badan la arko abaaro la arko kulayl badan ay jiraan waxaas oo dhan aqoonti ay kula tacaali lahaayeen ma haystaan. caqabada saddexaad oo ah tan ugu muhiimsan waxa weeyaan in aysan bulshadu haysan siiba dhalinyarada dawlad awood leh oo ku taageerta ka shaqeynta arrimaha deegaanka. waxaan ugu baaqaynaa dhalinyarada inay bartaan culuumta la xiriirta deegaanka, inay keenaan xalal hal abuur leh, sidoo kalena inay si isxilqaan leh uga qayb qaataan ololaynta deegaanka si loo yareeyo khataraha ka dhashay isbeddelka cimilada.